xaggee ka yimaadeen dadka Soomaalidu xaggee ka keeneen dhaqanka ay wataan luqadda ay ku hadlayaan xaggee ka soo jeedaa yees isku asal yihiin yey isir wadaagaan yaasa keenay dhulka Geeska Afrika barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa taariikhda iyo israaca dadka Soomaalida iyo dhammaan qabiilada la walaalaha ah ee la degan Geeska Afrika magaceyguna waa Maxamed Cabdisalaam dadka Soomaalida iyo dhammaan qabiilada la degan Geeska Afrika ayaan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkan israacoodii hore meesha ay ka yimaadeen iyo halka ay ka soo jeedaan inta ay dhaqan wadaagaan luqadaha ay ku kala hadlaan iyo wixii keenay dhulkan Geeska Afrika muddooyinkii wixii ka horeeyay 1500 taariikhda milaadiga ee hadda ku jirno haddii aanu ka soo bilowno nabi nuux alayhi salaam nabi nuux waxa uu ahaa aabihii labaad ee bini aadamka hadda nool ee dunida ku nool nabi nuux waa tii ilaahay haligay qoomkiisii kadib marka uu ilaahay u baryay inuusan midna dhulka uga tegin kuwii kitaabkiisii ka soo horjeestay nabi nuux alayhi salaam ayaa qoomkiisii lagu haligay biyo cirka iyo dhulka intaba isaga yimid oo ilaahay soo diray in lagu haligo waxaana halkaasi oo ku waayay wiilashiisii mid ka mid ahaa oo isagu diiday diinta ilaahay isaga iyo qoomkiisii iyo xaaskiisii intaba nabi nuux alayhi salaam saddexdiisii wiil iyo qoom yar oo rumeeyay ayaa ilaahay ka badbaadiyay biyihii iyo badihii ilaahay ku harqiyay waladaas diinta ka soo horjeestay nabi nuux alayhi salaam waxa uu dhalay saddexdii wiil oo dhalay waxa la kala oran jiray Xaam iyo Saam iyo Jaafat waa saddexda bini aadamku ay ka kala farfarcameen iyadoo qoomkii Iraa rumaysnaa saddexdaas wiil ay kala abtirsadeen balse haddii aan soo qaadano Xaam waaya wuxuu ahaa nin madow ilaahay asagoo sheegay in bini aadamku oo sida ciid oo kale midabadeeda kala yeelan doono Xaam wuxuu ahaa nin madow waxaana uu dhalay 4 wiil wiilashii ilmo nuux Jaafat waxa uu aaday dhinaca waqooyi oo waxa duriyadiisii ka farcamay dadka Turkiga iyo dhammaan la isku yiraahdo qolooyinkan galbeedka Saamna waxa ka farcamay Asia qaaradda Asia inta badan oo ay Carabta ku jirto Xaamse waxa uu farciisi ku dambeeyay qaaradda Afrika isagoo Xaam dhalay 4 wiil afarta wiil waxa la kala oran jiray Kush Ethiopia qolooyinka lagu yeeri jiray Kush ama Kush Ethiopia oo farcankiisu inta badan degan yahay qaaradda Afrika ama bariga Afrika Miserium oo dhalay Egypt oo ay ka farcameen farcintii Masaarida Put oo ay ka farcantay boqortooyadii Libya oo degan waqooyiga Afrika Kaynaan oo dhalay Hibrowgi iyo dadka reer Bani Israa'iil iyo Falastiiniyiinta Xaam ayaa wiilal badan lahaa Kush laftigiisa ayaa wuxuu sii dhalay wiilal badan oo ka mid ahaa Nimrod oo ahaa boqor oo ahaa in Kush waa nin kibir badan ayuu ahaayo ay diimaha iyo taariikhdu intaba ka hadleen waxa ka mid ahaa wiilashiisa kala Seba Xafiila iyo qaar kale oo badan marka sida taariikhdu sheegtay Seba iyo Xafiila labaduba waxa ay ka farcamay dadka qabiilada Geeska Afrika si aan u helo cadaynta dadka Soomaalida ah iyo qabiilada la degan Geeska Afrika meesha ay ka yimaadeen asalkoodii ayaa waxaan ku soo qaadayaa 3 qodob
baaritaanka taariikhda iyo wixii ay ka tageen qoomkii hore ahraamaha ku yaala dalka Suudaan iyo Masar. baaritaanka luqadda Soomaaliga ah ama asraaca luqadda Soomaaliga meesha ay ka timid iyo luqadaha la walaalaha ah. dhiigga cidda aan wadaagno iyo cidda inagu dhow haddaan Soomaalinahay si aanu cadaynta qodobada aan ka soo hadalay u helo ayaa waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo qaarumihii hore ee soo jireenka ahaa iyo xilliga ay soo bilowdeen iyo wixii ay taariikh ka tageen intaba. boqortooyadii reer Kuush ee ku taalay bartamaha dalka Suudaan ee xaruntiisu ahayd Kerma ee ku taalay webiga Naylka iyo boqortooyadii faraaciintii Masaarida ayaa waxay ahaayeen laba boqortooyo oo isgees degan isku waqtina abuurmay. faraaciinta markaan leenahay waa labada dalba ama labadii boqortooyo ee isku waqtiga soo bilaabmay 5,000 oo sano ka hor dhalashada Nabi Ciise ama muddo hadda laga joogo 7,000 oo sano in ka badan ayaa labadaasi boqortooyo waxa ay ku kala yaaleen dalka Masar iyo Suudaan. labada boqortooyo waxay ahaayeen laba boqortooyo oo marna col ah marna saaxiib ah, waxaana lagu tilmaamaa labadii boqortooyo ee ugu jiritaanka dheeraa kana tegay taariikh la yaab leh oo ilaa iyo hadda bini'aadamku awladha ka faarsan yahay. taariikhda labadaasi waddan ay ka tageen waa faraaciintii Masaarida iyo faraaciintii midmadoobeed ee reer Kuush ee iyaduna ku geestaalay. labadaasi boqortooyo waxa ay ka tageen taariikh ay ku sharaxeen ahraamta iyo dhagaxyada ku taala dalka Masar iyo Suudaan labadaba. labadii boqortooyo ee sag deganaa ee faraaciintii Masar iyo reer Kuush oo iyagu isla ahaa laba kooxood deganaana webiga Naylka ayna u suurtagelisay biyaha webiga Naylka iyo barwaaqada dahabkii iyo macdantii dhammaan ay u suurtagelisay in ay dadkaasi noqdaan dad waqtiyadii awoodihii jiray kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ama kuwa ka mid ah ay noqdaan. boqortooyada reer Kuush waxaa caasimad u ahaa magaalo oran jiray Kerma ee ku taala waqooyiga dalka Suudaan ee ilaa iyo hadda ay degan yihiin qabiilka la yiraahdo Beejada ee afka Kushitika ku hadla ilaa iyo hadda ama luqadda Kushitika ku hadla ee ay muuqaalka iyo dhaqanka iyo luqadda intaba ay wax badan wadaagaan qabiilada kale ee Kushitika ku hadla ee bariga Afrika ee Soomaalidu ay ka mid ka tahay. ahraamta ku taala dalka Suudaan waxa ay 3 jabaar ama 3 jeer ka badan tahay midda ku taala dalka Masar, waxaana laga helay ahraamtii ugu qadiimsanayd ee abid taariikhda. reer Kuush waxa kale oo ay dhisi jireen ahraam ka duwan kuwa kale ee Masaarida ama faraaciintu ay dhisi jireen, waxaana ay dhisi jireen ahraam u eg sida mudulka ama mudulka Afrikaanku aw imika isticmaalo. ahraamta dalka Suudaan ku taala ayaa qaar ka mid ah waxa ay leedahay ama u eg tahay ama ay tahayba mudulka Afrikaanka hadda oo isticmaalo mid u eg, iyadoo dadka Afrikaanka inta badan ay ka soo jeedaan boqortooyadii reer Kuush iyo Nubiyiintii deganaa dalka Suudaan iyo Masar. reer Kuush waxa ay deganaayeen dhulka loo yaqaano Nubiya ee hadda ah waqooyiga dalka Suudaan. faraaciintii midmadoobeed ee reer Kuush waxaa la oran jiray lagu yeeri jiray qaansoolaydii midmadoobeed, waxaana ay tumi jireen birta iyo sanaacadda. waxaa kaloo ay caan ku ahaayeen dhoofitaanka xayawaanka sida maroodiga foolkiisa, dahabka, argaha iyo waxyaabo badan oo ay beec mushtarka u iibgeyn jireen Masaarida. ayaga iyo Masaarida ayaa waxay ahaayeen kuwa ay beec mushtarku ka dhaxeeyo, waxayna ahaayeen kuwa marna cola marna saaxiiba.
faraaciintii masaarida ayaa waxa ay aad u danayn jireen xoolaha iyo dahabka iyo sanaacadda ay gaareen reer kuush in ay iyagu la wareegaan awoodda oo ay xoog ku qabsadaan 1800 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise ayaa boqortooyadii faraaciyadda cusbayd ee faraaciyadda masar ee la oran jiray new kingdom ayaa waxaa waqtigaas faraacigii madax ka ahaa faraacigii Tutmosis-kii koowaad ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday reer kuush waxaana uu qabsaday magaalo madaxdii reer kuush ee ugu horeysay oo ay lahaayeen ee la oran jiray Kerma waxaana kaloo ay dhammaan bilaqaysteen xoolihii iyo dahabkii iyo waxyaabo badan ayay ka bilaqaysteen reer kuushna waxay dib ugu gurteen dhinaca koonfurta Suudaan oo wax kaloo ay samaysteen magaalo kale oo markii dambe magaalo madax u noqon doonto oo la oran jiray Nabata Tutmosis-kii koowaad marka uu qabsaday magaalada Kerma ayuu dadkii uu qabsaday ee reer Suudaanka ah ee faraaciintii midowda reer kuush ka soo jeeday ayuu waxa uu qasbay inay dhaqanka masaarida qaataan kaasoo sameeyay in uu waxyaabihii iyo asnaamtii iyo ahraamahoodii uu baabi'iyo oo ku dul qoro tii masaarida ay lahaayeen kadib markii archaeology-gu hadda ay soo qodeen taariikhdii kale oo ka soo hoosisay oo qariyeen iyagoo ku muujiyay farshaxanka iyo waxyaabaha ahraamta lagu qoro iyo asnaamta intaba in ay leeyihiin reer Masar oo faraaciintii masaaridu ay ku dul sameeyeen kadibna hadda la ogaaday waqtigii la soo qoday balse waxay ku muujiyeen oo kale inay reer kuush ahaayeen adoomo la adoonsado oo aan waxba garanayn ayay taariikhda halkaasi kaga muujiyeen boqortooyadii faraaciintii masaarida ayaa waxay ahaayeen boqortooyadii ugu xoogga weyneed uguna jiritaanka dheerayd uguna ilbaxnimada dheerayd abid ee taariikhda soo mara boqortooyadii faraaciintii masaarida ayaa waxa ay soo bilowdeen xilligii nabi ibraahim calayhi salaam ama muddo ka badan 3000 oo sano dhalashadii nabi ciise ka hor ayaa boqortooyadaasi soo bilaabatay waxaana ay ku bilaabatay boqortooyooyin u dhisnaa sidii xisbiyadii oo kale oo xisbi kasta uu haysto boqortooyada uu xukumo 500 oo sanadood boqortooyadii ugu horeysay waxaa la oran jiray early dynasty waxaana ay xukumaysay 500 oo sanadood taasoo soo bilaabatay muddo lagu qiyaasayo 3000 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise 500 oo sano kadib ayaa waxaa tan dhalatay boqortooyo la oran jiray old kingdom ama boqortooyadii hore iyaduna soo haysay 500 oo sanadood kadib 500 oo sanadood ayaa haddana waxaa dhashay boqortooyo la oran jiray middle kingdom boqortooyada dhexe oo iyaduna soo xukumaysay 500 oo sanadood kadibna waxaa dhashay boqortooyadii cusbayd oo lagu yeeri jiray new kingdom waana boqortooyadii ugu caansaneed oo ugu dhibka badnayd taariikhda faraaciinta masaarida boqortooyadii cusbayd haddii aanu soo qaadano ayaa boqortooyadaasi waxaa ka talinayay Tutmosis 1 Tutmosis 2 Tutmosis 3 Mentuhotep Akhenaten Ramses 1 Ramses 2 Tutankhamun Hatshepsut Seta way badnaayeen boqortooyadaas ayaa waxay ahayd boqortooyadii xilligii nabi muuse calayhi salaam Ramses-kii labaad oo xukumayay 67 sano ayaa asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa oo ku adkirsadaa reer Kushayte isagoo oo xataa midabkiisu madooba boqorkaas Ramses-kii labaad ayaa waxa uu ahaa kii ugu kibirka badnaa iyagoo kulligood kibiraani ah oo isku sheegi jiray inay ahaayeen Amun oo mid ay u doortaan ilaahnimo sare oo qoraxda la shaqeeya ayay aaminsanayeen waxaanu ahaa ninkii bedelay xataa diinta faraaciinta hore soo jirtay oo u bedelay noocan oo asagu wax ka bedelay diimihii hore ee ay haysteen faraacigaas Ramses-kii labaad ayaa waxa uu ahaa kii xilligii nabi muuse sida taariikhdu ay sheegto oo
waxa uu ahaa kii biyaha lagu halligay ilaahay ku halligay kadib markii uu amar diido ku sameeyey inuu ka haro dadkii reer bani israa'iil ee uu doonayay inuu dhameeyo. nabi muuse calayhi salaam waqtigiisii ayaa lagu qiyaasaa boqorkaas, waana kii biyuhu ay halligeen oo hadda aad ka arkaysaan jirkiisii oo yaalla oo aan isbedelin, iyadoo boqortooyooyin badan ay yaalliin oo Tutankhamun ka mid yahay ay weli jirkoodii iyo sidooda ayagoo ah ay yaalliin. ilaahay isagoo sheegay in ay calaamadahaasi ka muuqan doonaan qoladaas faraaciyiinta ah ee ilaahay ka furtay ilaalnimadana sheegtay. boqortooyadii reer Kushayte ayaa dib isku abaabulay oo waxa ay ku qaadatay muddo ku dhow 1,000 sano kadib markii uu jabiyey faraacigii masaariga ahaa ee Tutmosis kii koowaad. boqortooyadii reer Kushayte ayaa waxa uu dhashay boqorro badan ayaa u dhashay oo ka soo baxay dhulkii Suudaan, waana markii ay soo baxday faraaciyiintii madmadoobeed ee reer Kush. boqorradii reer Kush waxaa ka mid ahaa boqorkii Taxarqa, Piyankey iyo kuwo kale oo badan. boqorkii Piyankey ayaa qabsaday dalka Masar oo dib weerar ugu soo qaaday, isagoo ka qabsaday dhulkii Suudaan ee ay xukumi jireen reer Kushku oo uu Tutmosis ku qabsaday ayuu dib uga qabsaday, isagoo oo dagaalkii sii waday qabsadayna dhulka Masar oo dhan. reer Kushayte oo lagu yeeri jiray qaansooleydii madmadoobeyd ayaa waxa ay qabsadeen dhammaan dalka Masar oo dhan iyo Suudaantii laga haystayba. boqorkii Piyankey ee reer Kushayte ayaa qabsaday dalka Masar oo dhan oo la wareegay xukuumaddii faraaciyiintii Masaarida. waqtigaasoo ay kooxihii reer Liibiya oo dagaal ogayaal ahaa ay madax ka ahaayeen ayuu dhammaantood dhagta dhiigga u daray. boqorkii Piyankey ee reer Kushayte ayaa markuu qabsaday Masar ayaa faraaciyiintii Masaaridu waxa ay la galeen heshiis si ay Kushiyintu u sii xukumaan, waxaana isku magacaabay mid loogu yeeri jiray State God Amun ama mid qoraxda la shaqeeya oo isagu ilaah isku sheega oo ay waxa caabudu jireen diimaha xaggooda. waxaa jiray oo kale boqorro badan oo ka soo baxay reer Kushayte, waxaana ka mid ahaa boqorkii Taxarqa, Kashta iyo kuwo kale oo badan. balse boqorkii Taxarqa ayaa wuxuu ahaa kii ugu taariikhda dheeraa ee abid soo mara taariikhda dalka Masar iyo Suudaanba. boqorkii midooba ee Taxarqa ee reer Kushayte ayaa wuxuu ahaa kii ugu badnaa ee dhisa ahraamta ugu badan dalka Masar, kaasoo ay ku sharaxan tahay ama uu kaga tegay taariikhdii ugu weyneed ee dalka Masar oo dhisay ahraamaha ugu waaweyn dalka Masar. Taxarqa oo xataa kula dagaalamay Assyriankii iyo Babyloniantii ku gumaysanayay kuna bahdilayay Israa'iiliyiinta dhulka reer Israa'iil ayaa ka saaray oo ka xoreeyay Israa'iiliyiintii lagu gumaysanayay dhulkooda. 321 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise
ayaa waxaa soo galay dalka Masar Great Alexander oo u dhashay dalka Macedonia. Great Alexander oo dhisay magaalada Alexandria ee dalka Masar ayaa ninkaasi ayuu xoog waxa uu kula wareegay dalka Masar. Great Alexander ayaa waxa uu ka saaray reer Kushayte oo garab ka helayay Bershiyiintii iyo Assyrianski intaba oo ay isla ahaayeen Semitic Toga. markaa ayaa reer Kush dib waxay ugu noqdeen dalka Suudaan iyo magaaladoodii hore ee madaxdoodii Nabata. markii ay Greegiintu qabsadeen dalka Masar ayaa waxa xukumayay reer Kushayte. markii ay arkeen dadkan madmadow ee xukumaya dalka Masar ee faraaciintii madmadowed ayay waxay ugu yeereen Autobia, taasoo macnaheedu ay tahay wajigii madooba ama wajigii gubnaa. marka waa marka ay bixiyeen magaca Ethiopia. Alexander Great ayaa markii uu Masar qabsaday waxa uu sameeyay oo uu tixgeliyay in ay faraaciyada Masaaridu sii socoto boqortooyadeedu. waxaana uu sameeyay Cleopatra oo boqoradii ugu dambeysay ee faraaciyada Masar. inkastoo Cleopatra ay xagga hooyada ka soo jeedo Greek iyo Masaari ay iska dhaleen oo ay hooyadeed ahayd Greek, kaasoo ka dambeeyay Great Alexander ama Alexander Great oo ka dambeeyay in ay faraaciyada Masar sii socoto oo ay sii jirto ayuu ku tixgeliyay. inkastoo uu Greegiintu ay gabadha Cleopatra abti u ahaayeen, kadibna waa tii ay Romanski soo galeen oo ay Cleopatrana isdishay oo ay maska isku dishay. waxaa isku sii bahaystay dalka Masar Romanski iyo Greegi Persianiski oo ku dhexlabnaa dhammaantood ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen faraaciintii madmadoobeed oo markaa deganaa Suudaan oo reer Kushayte ayay dib u soo weerareen. waxaana ka qabsadeen magaaladii labaad ee magaalo madaxda u ahayd ee Nabata. kadibna reer Kushayte ayaa waxay u sii guureen dib oo waxa ay degeen magaaladii ugu dambeysay ee taariikhiga ahayd ee caasimadda u ahayd ee la oran jiray Marwe ee ku taala koonfur bari dalka Suudaan oo webiga ku taala. reer Kushayte waxa ay soo gaareen ilaa iyo qarnigii afraad ama 400 oo sano kadib dhalashadii Nabi Ciise. reer Kushayte oo lagu yaqaanay in ay deganaayeen Marwe kuna dagaalami jireen maroodiyaasha ayaa waxa ay dagaalamayeen muddo dheer. reer Kushayte iyaga oo ku xogeystay Marwe maroodiyaashan ku dagaalami jiray oo ay dagaal ku dhexmari jiray qolooyinkii la baxay Semitic Toga ilaa ay ka soo gaareen qarniga afraad ee miilaadiyada hadda aan ku jirno ama 400 sanadku markuu ahaa ayaa dadkaasi waxay noqdeen dad markii dambe qarniga afraad la jabiyay. reer Kushaytana waxa ay soo aadeen ama u kala firqeen dhinaca bariga Afrika ayagoo iska noqday dad reer baadiye ah oo meel iska aaday, kadibna qaarba meel iska aaday. waxaana inta badan soo aadeen dhinaca geeska Afrika ayagoo dadkaasi loogu yeeri jiray dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee reer Kushayte. isla waqtigaasna waxaa samaysmay boqortooyadii Aksumite ee boqorkii King Asana ee diinta Kiristaanka ka hirgeliyay dalka Ethiopia oo boqortooyadii sii waday Abbasiniyiinta ee markii hore ay xukumi jirtay Bilqis ama Seba oo waxa uu ku andacooday ama uu sheegtay ninkaasi inuu ka soo jeedo asal ahaan reer Bani Israa'iil oo boqortooyadii Seba ee xilligii Nabi Suleymaan calayhi salaam oo iyaduba ka soo jeeday reer Kushayte asalkeedu ayaa boqoradaasi waxa ay xukumaysay dalka Yemen iyo qayb ka mid ah Ethiopia oo la oran jiray Aksum. iyadoo Ethiopiaanku dadka reer Ethiopia ay boqortooyadoodu ku abtirsadaan reer Bani Israa'iil sababtoo ay tahay Bilqis ayaa waxa ay ka soo jeeday Ethiopia sida ay Ethiopiaanku sheegtaan. Yementoona xataa ay sheegato, balse Bilqis waa tii diinteenaba lagu sheegay oo ay aaday Qudus oo ay halkaa kula kulantay Nabi Suleymaan calayhi salaam. kadibna uu guursaday ayaa Ethiopiaanku waxa ay sheegaan in ay uur soo yeelatay oo markii ay uurka yeelatay ay isku soo noqotay boqortooyadeedii Ethiopia. kadibna halkaas ay ka bilaabatay
boqortooyada Ethiopia oo ay wiilka ay dhashay ee Nabi Salmaan ka dhalay oo ay Ethiopian ka soo jeedaan halkaasna uu ku dhashay Miniliqa koowaad loo baxshay wiilkaasi oo halkaas ay ka bilaabatay Emperoriyadii Ethiopia ama boqortooyada Ethiopia halkaas ay ka bilaabatay luqadda Kushitigu waa luqad fac weyn oo ay ku hadlaan qowmiyadaha Soomaalida Anfarta Oromada Saahada Eritrea degan Beechada degan dalka Suudaan xaruntii faraaciintii hore ilaa iyo hadda ee waqooyiga dalka Suudaan Sidaame iyo qabiilo kale oo badan waa luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda kale ee la yiraahdo Semitic labadaas luqadood oo la isku yiraahdo Afro-Asiatic oo macnaheedu yahay Hamato-Semitic taasoo macnaheedu ay yahay luqadii Ham iyo Sam ee ilma Nuux oo isku darsantay isku dhexmilmatay marka luqadda Semitic waxa ku hadla wadamada waqooyiga Afrika iyo wadamada Carabta luqadda Semitic-na waxa wadamada bariga Afrika uga hadla oo kaliya Tigreega iyo Amxaarada luqadda Semitic-ku waa Arabiga hore ee laga hadli jiray bariga oo ka soo jeeda ama ku abtirsata Sam oo Arab ku abtirsada haddaba luqadda Kushitiga waa luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda Semitic Sam oo ina Nuuxa iyo Ham oo ina Nuuxa ayaa labadooda luqadood isku darsameen isku dhexmilmeen waxaan la isku yiraahdaa Afro-Asiatic luqadda Afro-Asiatic la yiraahdo ayaa waxay ka kooban tahay Semitic Kushitic Berber Tuareg iyo kuwa kale oo yaryar balse labada ugu waaweyn waxa yihiin Kushitiga iyo Semitic waxaan la isku yiraahdaa Afro-Asiatic marka luqadda afka Soomaaligu waa luqadda Kushitiga oo ka soo jeeda boqortooyadii hore ee Kush luqadiisi ilaa iyo haddana waxa ku hadla qabiilada geeska Afrika degan Ethiopia inta aan ka ahayn Amxaarada iyo Eritreaanka iyo Tigreega oo ku hadla luqadda Semitic DNA-da dadka humanka ah ama dadka bini'aadamka ah waxay leeyihiin guruubo iyo asal iyo isir ay ka soo kala jeedaan dadka Soomaalida ah iyo dhammaan qabiilada degan geeska Afrika sida Booranta Kenya degan Oromada Ethiopia degan Sidaamaha oo ayaguna Ethiopia ama Omo Valley degan Anfarta oo dhammaan qabiilada ku hadla afka Kushitiga iyo dhammaan qabiilada ku hadla luqadda Semitic labaduba dhiiga way wadaagaan dhammaan intii aan ka soo hadalay ee luqadaha wadaagta haddana dhiiga way wadaagaan oo luqadda Semitic kuwa ku hadla iyo kuwa ku hadla luqadda Kushitiga ee aan ka soo hadalay ee dhinaca luqadaha lagu soo hadalay labaduba dhiiga way wadaagaan markii dhiiga laga qaado haddaba markii la baaray DNA-da ayaa waxa soo baxaysa oo maanta cilmiga technology-ga ee maanta la gaaray ay fududeysay dhammaan dhigaga isugu dhow ee qabiilada dhammaan qabiilada degan Northka Afrika ama waqooyiga Afrika sida hadii laga soo bilaabo Mauritania Morocco Tunisia Algeria Libya Masar Suudaan Soomaaliya Ethiopia iyo in ka badan in kamida Kenya intuba ay wadaagaan dhiiga DNA-du waxa ay leedahay in dib loo raaci karo 10,000 oo sano in laga gaarayo in dib loo raaci karo oo markaasi la ogaan karo qofka uu ka sii yahay iyo sida loo kala dhow yahay loo soo kala dhow yahay maanta bini'aadamku DNA-da sida chromosome marka la yiraahdo ama qofka ka yimid nin ama ka farcamay ama naag ka farcamay ayaa waxa loo kala qaybiyaa DNA-da Y iyo XY oo haddii ninku uu ka farcamo Y ay tahay nin inuu ka farcamay qofkaasi oo asalkiisu nin ka yimid iyo in ay naag ka yimid labadaas ayaa loo kala baaraa mid oo kale waxaana ogaanaysaa DNA-du maanta inay tahay caddaynta kaliya ee runta ah ee xaqiiqda aadka ugu dhow ama ahba haddaba
markii la baaro dadka Soomaalida ah dhiigooda iyo dhammaan qabiilada la degan Geeska Afrika ee la soo magacaabay ee ku kala hadla labada luqadood ee Kushitik iyo Semitic ayaa waxa ay dadka isugu dhow yihiin dalka Masar iyo Suudaan iyo ilaa iyo Israel ay isku yihiin markii loo fiirsho habla groupka M78 ay isla qaataan labada intaas oo haddana DNA waxay ku tusaysaa ma adaa ka yimid masaga ka yimid ayaad ku tusaysaa istifalaaraha aad ka arkaysaan haddaba waxaad arki kartaa maanta qof ama madow ah ama cadaan ah oo saddexdiis oo ka hor haddii laga soo qaado inuu qofkaasi cadaan yahay saddexdiis oo ka hor oo aan karo qof madow oo bantu oo kala ah balse qofkaasi hadda oo yahay qof blonde oo cad ee waxa arkaysa markaas inay DNA-du isbedelin ay sheegayso balse ay isbedelayso midabka ama dhaqanku intaba ay isbedelaan balse DNA-du isbedelin haddaba markii dhiigga laga qaado Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo Afarta iyo dhammaan wadamadan Geeska Afrika degan oo dhan ama qabiiladan Geeska Afrika degan oo dhan waxaad ogaanaysaa inay aad qaraabo hoose u yihiin wadamada Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya iyo Soomaaliya marka DNA-du waxay ku tusinaysaa qofba qofku ka sii ah iyo cidba uga sii dhowdahay haddii aad maanta dhiigaaga dhigto boqoradii Xabsabshuud ee boqortooyadii cusbayd ee 1450 ama 1475 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa boqoradaasi waxay u soo safartay dhulkan Geeska Afrika boqoradii Xabsabshuud ee boqoradii ka talinayay faraaciintii xisbigii cusbaa ee boqortooyada cusbad lagu yari jiray daato aan ka soo hadalay markii hore qaybihii hore waa soo hadalay filmka ayaa boqoradaasi waxa ay timid Geeska Afrika iyadoo laba sheeko ay sheegaan inay boqoradaasi soo martay xagga dhulka ama oo ay ka soo dhacday ilaa iyo dhulkan Ethiopia ay soo dhexmartay oo ilaa iyo Geeska Afrika ay timid iyo in ay badda soo raacday ee badda cas ka soo dhacday gacanmid oo ay timid dhulkan Eritrea iyo Yemen iyo Soomaaliya ay soo gaartay waxayna halkaasi u yimaadeen in ay ka gurtaan beeyada iyo maydiga iyo arafta iyo waxyaabo badan iyo xayawaan waxaase kaloo ujeedada ugu weyn ay ahayd in dhulkaasi u yaqaaneen dhulka ilaahiyada oo ay dadkaasi ahayn dad aan diid haysan oo ay caabudi jireen qoraxda iyadoo intay dadkaasi buuraha intay fulaan qoraxda ka iftiisan jiray halkaasi oo ay yaqaaneen dhulka ilaahiyada ama dhulka markaasi uu ahaa dhul ayaga ay markaasi u soo haajiraan oo ay u ahaa dhulkii barakeysnaa markaasi ay ugu yeeri jireen ee dhulka ilaahiyada ahaa oo xagga diinta dhinaceeda ay soo leexisay waxaa jiray oo kale taariikh kale oo sheegaysa 2800 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise faraacigii reer Kushaite ee lagu yiri jiray Saxura in uu yimid halkan Geeska Afrika waxaana ay la soo wariyaa in ay boqorkaasi oo ka gurtay waxyaabaha la isku carfiyay la isku yiraahdo fragrances ama beeyada iyo carafta iyo baydiga oo caanka ku yahay dhulka waqooyiga dalka Soomaaliya iyo waqooyiga bariga waxaana ay la sheegaa taariikhda ay tala ay sheegaysaa in boqoradii Xabsabshuud ay soo gaartay ilaa iyo Xaafuum oo dhulka waqooyiga bariga dalka Soomaaliya ah iyagoo soo dhacay hawdkan kana gura jiray xabagta iyo waxyaabahaas oo dhan balse ujeedada ugu weyn ay ahayd inay dhulkan u yaqaaneen dhulka ilaahiyada taariikhda ama magaca Ethiopia ayaa waxa uu yahay magac taariikhi ah oo ku baxay dalka Masar kadib markii ay Greegiintii markii ay ka qabsadeen reer Kushaite ay ugu yeereen Ethiopia oo ay bixiyeen Greegiintu magacaasi oo ku baxay dalka Masar balse dalka Ethiopia ayaa waxa ay kamid yihiin wadanka ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika kuwaasoo soo jiray xilli ka horeysay Nabi Suleymaan calayhi salaam iyadoo ay
bilqiso xukumi jirtay oo Itoobiya fadhiday. Aksum boqorkii Kingazana markii uu ka hirgeliyay diinta Kiristaanka ayaa markaas bilaabatay maadaama ay bilqiso ka hor waqtigii xilligii Nabi Suleymaan ay ka jirtay iyadoo qayb ka mid ah Itoobiya ay xukumisay. balse boqortooyadii Itoobiya ayadoo sii socota ayaa boqortooyadii Abyssinia kadib dhalatay oo Itoobiya ahayd, halkaas oo ay iska sii socotay ilaa iyo ay ka soo gaaraan boqoradii dambe aan maqli jirnay ee Nagaasha iyo kii kabcada weeraray ee Abraham oo aan boqor ahayn asagu si ahaa nin boqorkii Nagaasha ka horeeyay oo dirsaday oo Itoobiya oo fadhiyay oo u diray dalka Yemen oo ay gumaysanayeen Itoobiyaanku ama Xabashidu. ayaa ninkaasi waxa uu sameeyay dadka reer Yemen oo aadi jiray kabcada si ay ugu soo caabudaan wax ayagu ay Ilaahay ugu yeerteen oo asnaam ah oo ay ku dhex guri jireen kabcada. waa kii yiri waxaan siisa uba aadin, waxaan ka soo duminayaa kabcada si ay uga joogaan reer Yemen. waana kii maroodayaasha ka haystay ee kabcada weeraray kana diiday boqorkiisii Itoobiya joogay amarka in uu ka soo noqdo kabcada. waana tii Ilaahay u soo diray shimbiraha oo dabka afka ku watay oo halkaas ku dhamaaday. ninkaas kadib waa tii uu soo gaaray boqorkii Kiristaanka ahaa ee markii dambe muslimada ku dhintay ee Nagaasha. kadibna waa waqtigii Ilaahay quraanka kariimka ku soo dejiyay Nabi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa Allah ka yeelay. Nabi Maxamed markii ay diintu ku soo degtay taariikhdu markay ahayd 610kii milaadiga aan ku jirno ama 610 sano kadib dhalashadii Nabi Ciise, ayaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu diinta Islaamka ku fidiyay adduunka oo dhan oo waxa uu diray asxaabo iyo ciidamo dalka Suudaan iyo Masar oo lagu gumaysanayay dadkii reer Kushayte oo ay qoladii ama kooxihii Samatigtooga ee isbaystay ee qabsaday dalka Masar iyo Suudaan ay bilaabeen dadka madow in lagu gumaysto halkaasi ilaa iyo dadkii madooba oo soo gaareen oo gumaysiga oo balaarto oo ilaa iyo ay soo gaarto in dadkii badaawada Carabtu ay isku hoggaansadaan dadkii madooba oo ay ku gumaystaan meel kasta oo ay dadka madow joogeen. ayaa diinta Islaamka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu diray ciidamo iyo asxaabo diinta Islaamka ku fidisa kana xoreysay dadkii halkaas lagu gumaysanayay oo lagu dhibaateynayay, iyadoo diinta Islaamku ay soo ogoleen in dadka Islaamka la gumaysto ama qof kasta ama cid walba ahaade. diinta Islaamka waxa kale oo ku fidiyay dhammaan adduunka oo dhan. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa asxaabadiisa u kala diray adduunka oo dhan iyo ciidamadiisaba, waxaana markii dambe uu soo diray asxaabadiisii qaar ka mid ah dalka Itoobiya oo halkaasi ay kula kulmeen boqorkii Nagaasha ee Kiristaanka ah ee la sheego inuu diinta Islaamka ku dhintay markii ugu dambeysay oo islaamnimo ku dhintay. ayaa boqorkaasi uu ku qaabilay asxaabadii markii uu ka dhageystay diinta Islaamka ayuu ku raacay oo waxa uu fasaxay in dadkaas la nabadgeliyo. kadibna diinta Islaamku ay ku fiday dhammaan geeska Afrika, waxaana diinta Islaamka qaatay qolooyinkii ama kooxihii reer Kushayte ee sida Oromada, Canfarta, Saahada, dhammaan inta aan ka ahayn Tigreega iyo Amxaarada iyo Eritreanka inta aan ka ahayn ay diinta Islaamka qaateen ayagoo aan lagu khasbin, balse kuwa kaleba qaar ka mid ah ay islaameen. xataa diinta Islaamka waxa ay dadkaasi ku qaateen ayagoo aan cidna ku khasbin. kadibna waxa halkaa ka bilowday cadaawadii u dhaxaysay Abyssiniyiintii Kiristaanka diinta Kiristaanka Masiixiga ee Itoobiya iyo qabiiladii reer Kushayte oo iska ahaa dadka xoolo dhaqatada ah oo ku kala firqsanaa geeska Afrika oo dhan. kadib markii ay dhammaan qabiiladii reer Kushayte ay diinta Muslimka ku qaateen
iyagoo aan cidna ku khasbin ayaa waxaa sii batay colaaddii u dhaxaysay masiixiga diinta kiristaanka ee abasiniya iyo qabiiladii kale ee reer kushayte ee diinta islaamka iyagoo aan cidi ku khasbin qaatay ilaa uu ka soo gaaray axmed gurey oo kula dagaalamay abasiniyiintii iyo bortuqiiskii ay wateen dalka etoobiya. axmed ibraahim al khaazi oo soomaalidu ku naynaasto axmed gurey ayaa waxa uu kula dagaalamay abasiniyiintii etoobiya iyo bortuqiiska ay wateen. taariikhdu markay ahayd 1500 axmed gurey ayaa waxa uu ku dhashay meel u dhaxaysa harar iyo saylac sanadku markuu ahaa 1507 taariikhda milaadiga ah. axmed gurey waxa uu ka soo jeeday boqortooyooyinkii iyo saldanadii ka jiray ama ka hirgalay magaalada saylac ee dalka Soomaaliya qarnigii 13aad. axmed gureyna waxa ay Ethiopian ku sheegaan ninkaasi inuu ka soo jeedo asal ahaan Carab, balse taasi ay tahay mid aan la hubin ee Soomaalida iyo taariikho badan ay sheegaan ay wada cadeeyeen in ninkaasi uu ahaa asalkiisu Soomaali ka soo jeedo. axmed gurey ayaa waxa uu ahaa in scholar ah oo diinta islaamka bartay, waxaana diinta islaamka daraadeed uu la galay dagaalkii uu la galay dalka Ethiopia isagoo oo qabsaday magaalooyinka Casab iyo Masawa isagoo oo ku sii jeeday xaruntii Aksum iyo Lilabela, waxaana uu gaaray magaalada Lilabela isagoo oo wata ciidamo badan oo reer Kushayte iyo Soomaali ah isagoo doonayay inuu dhammaan qabsado abasiniyiintii xukumaysay dhulkaasi. waxaana abasiniyiinta ay u yeerteen Portuguese oo ay caawimaad weydiisteen si ay uga celiyo. halkaasna waxaa dagaal ku dhex maray oo isku food saaray ciidamadii reer Kushaytiska ah ee axmed gurey watay ee muslimka ahaa iyo amxaaradii ama abasiniyiintii iyo Portugiiskii. dagaalo badan kadib ayaa waxaa dhacday in axmed gurey ku dhacay madfac ay soo rideen Portugiisiyiintii. kadibna axmed gurey ayaa dhaawac ahaan ugu dhintay madfac ay soo rideen Portugiisiyiintii. axmed gureyna waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd bishii February 22 1543. dhaqanka iyo hidaha iyo luqadda intuba waa wax weyn inay dadku haystaan dhaqankooda iyo diintooda iyo waxa iyagu ay hore u lahaayeen ama cid kasta ama bulsho kasta inay haysato waa mid siinaysa karti iyo awood. waxaana muhiim ah in dadka Soomaalida iyo reer Kushayte ay haystaan luqadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo waxa iyagu ay lahaayeen intaba, iyadoo aad moodo dadka Soomaalida ah ama dhammaan inta kaleba ay wixii hadda ka hor ay ahaan jireen in ay wax kala ay sameynayaan oo ay dhaqankii sii bedelayaan oo luqadii sii bedelmayso. waliba si Soomaalida oo dagaalo iyo colaado iyo qabyaalado iyo dhibaatooyin badan ay aafeeyeen boqolkii sano ugu dambeysay. waxaana jeclahay inaan tuso qayb ka mid ah reer Kushayte ama reer Kushayte qolooyinka reer Kushayte oo kala duwan sida ay isugu dhow yihiin iyo maca qolooyinka kale ee ku hadla afka Samatiga ee sida Tigreega iyo Amxaarada. dhammaantoodba inay yihiin dad wada dhashay oo isku dhiig ka soo jeeda balse kala luqad duwan
waxaana jeclahay inaan idinka tuso kuwa qaar ka mida reer Kushayte ama qabiilada reer Kushayte sida beejada iyo Suudaan degan iyo Soomaalida iyo Afarta iyo Sahada iyo Boorama intaba sida muusig ahaan ama dhaqan ahaan iyo af ahaan bay u kala duwan yihiin oo isku dhow yihiin qabiilka Soomaaliyeed ee Ciisaha ayaa waxa ay yihiin qabiil aad iyo aad u tixgeliya dhaqankooda oo aad ugu dhagan dhaqankooda markii loo fiirsho Soomaalida kale iyagoo dadkaas ay wali si fiican u haystaan dhaqankoodii iyadoo ay dadka Soomaalida ay xooreen dhaqankoodii oo ay amoodid inay dhaqamo kale iyo waxyaabo kale oo ay Soomaalida lagu aqoon ay hadda la soo baxeen oo ay loobeen cidda ay ahaayeenba iyaga oo dadkaasi Soomaalida ah dhibaato badan soo food saartay boqolkii sano ugu dambeysay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa qabiilka Ciisaha Soomaaliyeed iyo qabiilo degan galinka shanaad ee Soomaaliyeed intuba inay aad u tixgeliyaan dhaqanka Soomaalida waxaana jeclahay inaan wax idinka tuso caleemasaarkii boqorka Ciisaha ee Ugaas Roble oo ka dhacay magaalada Sayla ee dalka Soomaaliya habkii ay u ciyaareen ama hab dhaqankii ay u ciyaareen qabiilka dagaalyahanka Ciisaha barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaalida ah iyo dhammaan reer Kushaytaha kuwa kale ee Samatika ku hadla intuba ee qabiilada Geeska Afrika inay dhamaantood ama Kushitika ku hadleen ama afka kale ee Samatika ku hadleen dhamaantood in ay dadkaasi ka soo jeedaan faraaciintii Masar iyo reer Kush oo markii aan soo baarnay xagga dhiigga iyo luqadda iyo waxyaabihii iyo taariikhii ay ka tageen faraaciintii badmadoobeed ee Masar iyo Kush ayaa waxa dadka reer bariga Afrika degan dhamaantood inta badan boqolkiiba 90 ay ka soo jeedaan faraaciintii Masarida iyo reer Kush anagoo og wixii Axmed Gurey ka dambeeyay in qof kasto Soomaali og yahay inaanu Soomaali nahay ujeedadeedu aan programkan oo ano 15 sano in ka badan barnaamijkan baaray si aan u helo cadeynta ayaa waxaan ay ujeedadeedu ahayd si ay noo ogaado meesha aanu asal ahaan ka soo jeedno ama ka